kusoo dhawaada course-keena Adobe Illustrator. Casharkeena waa casharkii saddexaad oo aan ku baran doono ama casharkii labaad ee aan ku baran doono toolska uu leeyahay Adobe Illustrator. Toolishan maalin hore soo sharaxnay waxaan rabnaa inta yar aan ka tagnay inaan ku darno. Marka rabto marar qaar waxaa laga yaabaa inay ka qarsoon yihiin waxa loo yaqaano qaybtan kore oo kalarada qaar iyo stroke iyo farta nooceeda inay ka qarsoon tahay laga yaabaa. Halkee laga saxaa waa window marka tagto waxaa laga yaabaa inuu jeega ku saarneen controls jeega ka qaado sida u jeedo qaybtii kore looma jeedo way qarsoontay. marka rabto inaad soo bandhigto kale window ku dhufo kadib control jeeg saaro. marar qaarna waxaa laga yaabaa inay ka maqan yihiin toolishan ee dhinaca saaran ayagana sidoo kale waxaa laga yaabaa waxaad tagaysaa control window waxaad tagtaa window kadib waxaad tagtaa tool kadib difficult laga yaabaa inaad ka qaadataa jeega. waa ujeedaa halkan wax tool ah nooma saarno qaab aan u shaqeyno ma naqaano. haddii marka baalku iga hadlaysan yahay waxaad tagtaa window kadib waxaad doorataa tool kadib waxaad ka doorataa default. okay marar qaar waxaa laga yaabaa inaad adiga wax sawir u baahnaatay mastarad markaa rabto inaad markaa u baahnaato waxaad tagaysaa view kadib waxaad dooranaysaa ruler kadib waxaad dhigaysaa show ama waxaad dhigaysaa control R. mastaradi waa ka markaa rabto inaad soo jiidto mastarada wax ku cabirto kale halkan ku dhufo left click aad soo jiid geeska rabto meesha rabto dhigo mastarada hada xaggan hada rabto ka soo jiid sidoo kale saa u samayso waa markaa mastarada isticmaalayso. waxaa laga yaabaa marar qaar text yaa qortay halkan ku qortay waxaan ahay arday dhigta Samson Academy. waxaa rabtaa qoraalka inaad copy ka samayso. qoraalka copyna ka samayso waxaad tagaysaa qoraalka dooro kadib waxaad tagtaa object waxaad tagtaa edit kadib waxaad dhahdaa copy. mar labaad edit ku celi waxaad dhahdaa copy paste waa dhihi karaa laakiin waxaa laga yaabaa qoraalka inuu meel kale iga dhaco. waxaad dhigtaa paste in place halkiisa ku copy halkiisana paste ku dhig. qoraalka wuu dul saaran yahay kadib waxaad arrowga hoose ka soco oo kala qaadma qoraalka. haddaad rabto position inaad u socodsiiso shift la qabo shift markaa qabato qoraalka aad u socona sidii ayadana qoraal loo copy-aya waa halkaas ayaad isticmaalaysaa markaad u baahnaato copy. waxaan u baahnaada qoraalkaygan halkan ku qoran inaan ka dhigo uppercase waa taqaanaan waxaa la wadaa uppercase macnaheedu waxay ahayd qoraalkan inaan ka dhigo far waaweyn. uppercase iyo lowercase waa taqaanaan. far waaweyn inaad rabto inaad ka dhigto farta waxaad doorataa qoraalka kili ku dheh kadib waxaad doorataa type kadib waxaad doorataa halkan change the case kadib waxaad dhuftaa upper fartii waxaa laga dhigay all waxaa laga dhigay capital. haddaad rabto inaad small kale tahay inay capital ku ahayd sidoo kale type tag kadib waxaad tagtaa change case lower case. haddaad rabto taytalada ciwaanada ku jira in capital laga dhigo ama xarafka uu ka bilaabanayo sidoo kale change case waxaad doorataa title case oo macnaheedu tahay xarafka ugu horeeya capital ka dhig. haddaad rabto inaad samayso sidoo kale sentence case-ne qoraalka waxaad tagaysaa sentence case ku dhufanaysaa oo macnaheedu tahay sentence case waxaa la wadaa sida ingiriiska ama grammarka saxda xarafka ugu horeeya ee sadarka ka bilaabanayo in laga dhigo capital. wixii text qoraalkeeda ama hagaajinteedina sidoo kale waa halka. markaa u baahnaato textigaada ama qoraalkaadii ama wixii aad samaysay cabirkeeda textiga waa halka. okay sidoo kale waxaan rabaa inaan idin fahamsiiyo qaybtan sidoo kale waxaan ku sharxaynaa sidee loo soo geliyaa file ama logo ama sawir arta inaad soo geliso shaqo abuurto inaad soo geliso arta xagee la tahay waxaad tagaysaa file kadib waxaad dhahaysaa open markaad dhahdo shayga u baahneed ayaad halkan kasoo qaadanaysaa kadibna halkan ayaad soo gelinaysaa
kasoo qaado kale hadda waxaan u baahanahay inaan soo geliyo sawirkan oo kale open markuu sidaan kale kaa qabsado control minus keyboard code control minus markaa dhahdo sida halkan ujeedaan qaybta madow ee dhexe wareegan maxay tahay wareegan waa artboardkeeni waxaa ka weynaaday imageka aan soo gelinay imageka aan soo gelin marka waan yareynaynaa si artboard gudihiisa u galo imageka waxaad dooranaysaa geeskan ka dooro calaamad saar alta adoo hayo left click maxay isla qabanaysaa sababta maxay tahay qoraalka afarta gees inuu hal mar ka wada socdo laakiin haddaa sidaa dhahdo adoo left hayo saan dhahdo hal gees ayuu ka soconaa looma baahno marka qoraalkaada hadhowtu wuu kala dheeraan karaa ama sawirkaada dhinaca qabo kadib left iyo alta adoo hayo oo ujeedaa afarta gees wuu ka socdaa sheyga dhan wuu soo wada yaraanaa gudaha markaa saas artboard ku gelino control plus oo dhawey marka sidaa shape loo soo geliyaa marka waa sida sawirkan aan soo geliya hadda wuxuu ka hadlaa haddaad waxaa soo qaadan CMYK cda waxaa lasoo geliya waa kane waa colorkan m2 waa kane waa colorkan y waa kane yellow kdina waxaa waaye waa black halkan gudaha ku jirto sidee marka sawir ama wax u baahnaatay inaad soo gashato saas oo kale usoo gelinaysaa loogada iskuulkaada oo kale markaa rabto inaad boora kor saarato kale file tag open dheh kadib sheyga meeshuu yaalo kasoo qaado halkaan saan usoo geli sidoo kale sheyga markaa sidaan usoo gelisoo kale sheyga markaa sidaan usoo gelisoo kale waxaa u baahnaatay inaad loogo halkaan ka saarto oo kale loogadeeda oo khafiif ah waxaan rabaa inaan loogada soo geliyo open file open kadib loogadeeda ayaan soo rabaa inaan soo raadiyo loogada way soo gashay marka loogada markay soo gasho marka file open markaa soo dhado loogada waxay aadaysaa hanada tabka cusub ay samaysanaysaa sababtoo aan meeshka shaqada ku wadani waa kane midkaa rabno loogadana soo gelin halkan ay tagtay sidee loo soo jiidaa left click soo qaad qaybta rabto keen marka kadib halkan kusii daa loogada markaa sidaa u samayso loogada markaa sidaa usoo qaadato waxaa rabaa inaan sameeyo kasoo qaad background aan sameeyo colorkana waxaa sameeyay background ayaan kusoo daray kadib loogadeeda waa tani loogada waxaan rabaa inaan khafiif ka dhigo si loo background ugu dhex muuqato sidee khafiif loo dhigaa halkan opacitygaas ayaad yareynaysaa 100 waaye waxaa ka dhigaysaa ilaa number yar ilaa intaas oo kale loogada waa ka dhex muuqataa qalad kale waxaa kaloo jira wareegan cadaankan muxuu yahay cadaankan insha Allah qaabka loogu jiro waa 10 kale ku gaarayna waa background isa looga saara ee loogada la socday qayb kale aan ku qaadana marka hadda qaybtan waxaan ku sharxaa waxay tahay oo kaliya loogada inaad khafiif ka dhigi karto loogada markaa soo geliso oo kale waxaad tagaysaa opacityga numberka yaray inta u baahnaato haddaad meeshan geli haddaad 14 oo kale waa geli kartaa si ay u muuqanayso waa ka loogadina sidaas oo qaybta kale aan rabaa inaan sharxo waxay tahay waxaan rabaa shayba halkan saan ku sawiray shape kale aad sidoo kale halkan ku sawiray color kala si kan waxaan rabaa labada shape inuu kan soo kormaro oo kan hoos maro oo maxaa ka wada saan waa dhihi karaa dad dhihi kara saan inay dhahan saan soo dhahan saan la maro wili wuxuu jira hoos waxaan rabaa shape-ka inuu soo kormaro maadaama cagaarkan aan rabaa inuu hoos mariyo midka aad rabto hoos marta ama kormaraysa ayaa click ku dhehaysaa kadib right click markaa dhahdo arrange tag arrange markaa tagto waxaad doorataa bring to front hore inoo keeno haddaa rabto gadaal inay geysana send it to back markaan waxaan rabaa hore inaan keeno bring to front yaa dhehaysaa okay cagaarkii wuxuu maray gadaal waxay colorkii kalena wuxuu soo maray hore soo maray marka sidee laba shape oo kale ama laba shay oo kale kalaradooda aad rabtaa inaad soo kala hormariso kale ama shayga aad rabtaa inaad soo dulmariso shay kale uu hoos maro sidee loo bedelaa marka qaabkaas aad tagaysaa waa soo bedelaysaa right click aad dhigaysaa arrange kadib front marta ama back arta mid ka rabto ayaad dalbanaysaa okay
sidee gradient lagu soo dartaa ama loo doortaa gradient waa kana dhinacan oo ku yaala left right-ka gradient dooro kadib kalaradiisa waa kan halkan ay ku jiraan noo soo doorna kalarka u baahnaato kana kale iska soo qaado kadib shayga aad sawirayso oo kale gradient-iga saa noqdo okay waka color gradient marka u baahnaato waa ka kalaradan kale ee caadigaana waxaa ahayd halkan ayaad ka dooraneysay gradientina waa halkan okay waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo ellipse tool shape ah ayaan rabaa inaan image soo dhex geliyo sidoo kale ellipse tool saan oo kale u sawir waxaan rabaa image gudihiisa inaan soo geliyo ellipse tool saas kan markaa u doorato kale kalarka rabto noo sii kadib stroke yar u samee ilaa 1 ama 2 ilaa 2k kadib waxaan rabaa marka image inaan soo dhex geliyo soo qurux ugu soo baxo kale gudaha loo soo geliyo image oo soo banaan kusoo bixin shape ka dooro kadib waxaad doortaa halkan draw inside ku dhufo kadib waxaad tagtaa file kadib waxaad tagtaa place macnaha markaa dhahdo waxaa waaye image-ka waxaa iga soo ay soo dhigtaa ellipse tool gudihiisa place markaa dhahdo image ka soo dooro marka click ka dheh kadib waa bende sawirka waa kan uu ku socdaa click halkan ku sii daa halkan markaa ku sii daydo control minus dheh noo yaray sababtoos image-ka uu dheer yahay kadib dhinacan qabo left alt hayo left click haysaan usoo yaray markaasaa usoo yarayso haddana saan ujiid gudaha gee control plus wax yar noo weynay sababtoo ellipse tool inuu ku freestar waa saan noogu weynay wax yar kor ka soo celi iskaan oo kale wax yar celi okay sawirkaa rabto marka sidaas ayuu kugu soo baxay inaad image gudihiisa aad kasoo muujiso warkaa sidee loo isticmaalaa draw inside ayaan halkan ku sharaxnay okay casharkeenii saddexaad halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa adaa umahadsantihiin la socda insha allah casharadeena dambe ee ku saabsan graphic design-ka insha allah wax badan aad ka faa'iidi doontaan adaa umahadsantihiin thank you so much